Hadii Adan Aqoon Programming-ka adna rabto inaad noqotid hacker waxaad kaliyata ku koobanaysa adeegsiga toolka hore loo dhisay adigoo samayn karayn wax cusub sidoo kalena aan fahan buuxa ka haysan sida uu toolka adeegsanayso u dhisan yahay wayna koobnanaysa waxyabaha ku samayn karto toolkasi maadaama aad wax ka bedeli karayn oo ku samayn karayn customization si aad uga adeegsato qaabka doonaysay tayna waa caqabad ka hor-istaagaysa inaad horumar ka samayso hacking-ka hadaba taasi si aynu xalino wayna baranaa programming-ka programming-ku ma ahan kaliyata in la dhiso applications iyo websites sidoo kale waa qayb laga maarmaan u ah hacking-ka muuqaalkeenan waxaan ku soo qaadanaynaa luqadaha programming-ka ee muhiimka u ah hacking waana muhiim inaad ogaato sababtoo ah waxay ka caawinayaan inaad focuska saarto luqadaha ku muhiimka ah halkaad baran lahayd luqado badan waa muhiim u ah hacking-ka soo dhawaada dhalinyaro Python dabcan Python si aad ah loogu adeegsadaa guud ahaan security-ga hacking-kana waxa lagu adeegsadaa maadaama ay tahay luqad si fudud loo baran karo iyadoo lagu samayn karo automations kala duwan sida vulnerability scanning ama web scraping oo ah in xogta laga soo saaro websites waxaan sidoo kale Python u adeegsan karnaa scripting-ka si lagu qorno codes inoo sameynaya payloads haddaba waxa muhiim ah inaad Python ka baratid si aad waxyabahaasi ugu samayn karto waxa taasi aad kaga caawinaya inaad baratid libraries-ka Python sida request socket iyo subprocess libraries-ku waa codes hore loo diyaariyay oo qabanaya shaqooyin cayiman kuwaas oo aad u isticmaali karto luqadda bash script yana waxa loo adeegsadaa automationska ama in shaqooyinka loo qabto si automatic ah oo la yareeyo interactionska uu qofku la samaynayo haddaba bash script waa system level yani waxa si toos ah u access garan kartaa shellka Linux adigoo ku automate garan kara shaqooyinka sida network operationska ama maamulinta shaqooyinka network-ga sida security-ga network-ga sidoo kale bash script waxay muhiim noogu tahay maadaama Linux ay tahay meel command line ah toolska lagu adeegsadana ay u badan yihiin kuwa command line ah inaynu automation ku samayn karno toolskaasi sida Metasqualoid JavaScript ayaa iyaduna luqad si aad ah muhiim ugu ah hacking-ka JavaScript waa luqadda lagu dhiso functionalities-ka websites-ka waxaana aad muhiim ugu tahay hacking-ka websites-ka waxyaabaha uga baahan tahay inaad ka baratana waxa ugu muhiimsan sida loo soo gelin karo codes ama looga faa'iideysan karo uduleelada sida cross-site scripting JavaScript barashadeeduna waxay ka caawinaysaa inaad fahamto qaabkay u dhacaan loona samayn karo web hacking C# iyo C++ in badan ayaad maqashaa in labadan iyo ethical hacking muhiimad aad u weyn u leeyihiin se ma isweydiisay sida ay muhiim ugu yihiin maxaase loo adeegsadaa hagaag C# iyo C++ waa low level languages oo macnaheedu yahay waxaad si toos ah u controli kartaa operating system-ka waa kuwo ka dhaqso badan Python iyo JavaScript aadna ku samayn karto shaqooyin ka awood badan ku samayn karto Python waxaa sidoo kale C# iyo C++ ku samayn kartaa reverse engineering adigoo ku furfuri kara softwareska si aad u daraasayn karto codeskooda kuna heli karto meelaha vulnerability ka leeyihiin ay ka jilicsan yihiin softwarekaasi luqadda Ruby ayaa iyaduna ah luqad lagu dhiso toolska security-ga toolska ku dhisanna waxaa ka mid ah Metasploit Ruby waxaa loogu adeegsadaa uguna sameeyaa payloadska exploitska ama marka laga faa'iideysanayo vulnerability waxyaabaha ay ka anfacayso Ruby waxaa ka mid ah inaad fahamto qaabka ay u dhisan yihiin una shaqeeyaan toolska security-ga adigoo markaasina ku samayn kara customization ama in wax uga beddesho si aad ugu adeegsan karto qaabka doonaysay luqadda SQL ayaa iyaduna ka mid ah luqadaha muhiimka u ah hacking SQL ama Structured Query Language waa luqad loo adeegsado in lagu maamulo databaseska waxyaabahaad ku baranaysana waxaa ka mid ah sida loo sameeyo SQL injection waynu muuqaalkeena ku soo qaadanay khataraha uu leeyahay ahna mid ka mid ah vulnerabilitieska ugu caansan ee websites ku yeeshaan ugu dambayn inkastoo ay jiraan luqado kale oo muhiim ahi 6 luqadood ayaan soo qaadanaynaa kuwaasi oo ah kuwa ugu muhiimsan ee lagu adeegsado hacking-ka la wadaag muuqaalkan asxaabtaada xiisaysa hacking-ka kuna soo biir Somali mahadsanid